يعني وبيكسنا بيكسنا يهدنا هاي صومالي ويعني وتوصلنا نوراسني we want you guys واي محاتين ضد فرعون صومالي ذو and إيستيو ولا الماشي يمادان وانا عرفت you've been in America for the longest ماشي يمادان محي كينا صدح واحد لكن كودي بي وطان دين تودي بي وطان وانا ضد جناحسي minded ضد كان بسنسية هذا وين له 9 I would say a good 80% of them وادد متقانا primary education هايستا أما high school education وحلو يقانو يعني وادد في فرعون يعني حرفة جناح سجو Soomaalida waxaad ba moodaa inay ku dhashteen soo marka waxay ka xun yihiin way Soomaalida ganacsiga uu markiiba ugu kacaya waa dad iimaan leh waa dad sadaqaysta waa dad dadkooda soo dhawaysta soo marka waxa laga xun yahay ay weydiinayeen xagee ku dhalatay magaalada ku dhalatay ma garatay like and then when the moment you say Mogadishu because they want to know because waxay soo ogaadeen a lot of Somalis have different nationalities right dad Soomaali waxa jira ka yimid Kenya dad Soomaali ka yimid Djibouti dad Soomaali ka yimid Ethiopia oo deegaanka Soomaaliyeed degan so they right now they targeting qof Soomaali ka yimid not Somalia oo ka yimid mataqaana Kenya ama Ethiopia ama Djibouti also they're even like Somalia yeah of course dad xamal ka imaaday meelahaas dadkaas adiga borderka Soomaaliya wixii ka yimid borderka Soomaaliya so they asking people now ma Somalia ku dhalatay amal oo kale like were you born in because the only city they know is Mogadishu right so they asking people are you from Mogadishu you see so now we're noticing that they trying to subcategorize people based on what they were had they came out in Ethiopia they trying to like okay that can't matter you know like yes you Somali ethnically but I'm going after you know because I'm going after that Somalia came like the actual 7 right so marka which is weird because they all Somalis to be mataqana dadka dad baa jira obviously ku dhashtay Kenya ku dhashtay Ethiopia but laakiin waa Somali ama Djibouti laakiin waa Somali ethnically they look Somali they speak Somali so marka waxa hadda ay sameeyaan wax aynu hore u aragnay maaha so the other thing is they actually knocking on doors they go into restaurants maqaaxiyi bay galayaan coffee shopyadii bay galayaan so marka hadda yani geesinimo waxay muujinayaan iyo awood waxay muujinayaan aanan hore u arag when they came last week this week عادي noogu soo dhigteen عادي noo soo bixeen like we want you guys we after you whether you like it or not Well, so the courts Kaika what are they doing about it because I know you said they are assist what's one of the things they're doing also are they helping them I feel like I'm kind of like jumbled sorry but I seen another video where are the restaurant owners is it lack of education again lack of education private property yep dadka marka the owner ka maqaaxida la wuu maqnaa waxa joogay oday iska miskiin oo waayeel ah ayaa joogay as you can see in the video waa arki kartaa oday waayeel ah ku dhex jira meesha oo kaashiyada jooga so the owner was actually absent muu joogay meesha he was away from the business so markay meesha soo galiyeen waxa iska joogay nin oday oo meesha kaashiyarka ah oo ka shaqeeyo oo iska shaqeysta so marka obviously isaguna mataqaana xuquuqdii muu aqoon luuqadii ma yaqaano ay u baahan tahay inaad u dagaalantay because noloshaada ayaa maanta ku xiran sharaftaada iyo ciziga baniyada ugu waaweyn nimanka dhacay one company alone settled for $18 million cadaan baa lahaa ma garatay waa one company iska dhaaf kambaniyada kale waa one company so marka